حق حكومة كبل عمي كانوا عدوي جدها عدوي تبدأ أبوه بان رباح جرني ولقود بانكات كين وأنا راح السوقي سركعي كعاي بابلعون سنة كذي وعلى ماذا عوينه تملا قرن كدفاع ذواكي قرن كومدك وش علاني سيد الدفاع ذي وقرن كبرعدو شيء لقى عبصني مات قبل لح قبل بالقول ديبي قبل بامقن أو الله 20 كيلومتر بدي بري بعد إثيوبيا سيس قرن كصوهرين أقول هذا الدفاع ذواكي وحن قبل تحسين اللي شيء استهاي أما قرن كان وين هين ما كيسمايا كجرت حلقان كودي من الدفاع واتي دولتني ودي سومال لأن حتى لقيب سنية فوت كاسا لقو قيب سنية أقل كي عبد الرحمن عشام ما أنت دولتي بدل قيب سنية ما هم ملها يرجو ريك سامبون يو ملها دولتي وريك سما هي كل ميحال كسول الماضي والدولتي بدل قيب سنية أنت برين أورل هيدين اللي يمشيكن الدار دي الشيء وزير هوري محمد جامع أبقى الورباهين قرر ويد كلها لأن مقالة بورة ما حرنتها قبل كأوضل يا وحورين بيسولتها جاي استمر كأنا وسيادة كوكها لا برامج سياسات كحس كمحافظ كل مية وكوكلا يو دورشين كلوب النسية صدق هي 8 نوفمبر محمد جامع أبقى يا سيدو كلا وحوش ببرق وكسمي حكومتي هوري مدحونا أحمد سيلان يا حكومتها هذا مدحونا موسى بيحي عبدي وحنا وشاقي حكومتي سومالي لاند أول دمانتد حد وضع فردا جيت كوين يا أحمد محمود سيلان يهار سنة بيها ميلك وضع عبته سحن وحكو وضع عنته آمنتي هرمر يدو لدنا كفكريسا أيها سنة كي لما كونية تضبيط طوانكي isagoo duruufo badan oo jira xilliga eegay madaxweynaha xilliga Axmed Maxamed Silaanyo wuxuu xilkii iyo taladii dalka ku wareejiyay u haneeyay madaxweynaha maanta talada dalka haya Muuse Biixi Cabdi midigta uu ka taagnaa saaxiibkiisana Ilaahay u sakhreeyay Maxamed Kaahin mustanbeed culusna xagga dambe u fadhiyay laakiin nasiib darro sanad markaynu marayno ummadii biyaha wada cabaysa wada fadhiday waxaan baa bilaabmay xagga xukuumadda ka bilaabmay kan waa cadowi gudaha cadowi dabada abuud baan ribaax jirnay waligood baan ka adkayn waana la xasuuqay sarakacay kacay baa bilaabantay sanad gudii 6 sanadood markaynu indhaheennina wax qurux badan arki waayeen lagihiina wax fiican maqli waayeen gaar ahaan dhalinyartii Soomaaliland laga soo bilaabo magaala xeebeedkii ilbaxnimada iyo diinta bay laga soo gashay saylac dhalinyartii joogtay dhalinyartii jaamacadan Eelaa iyo Camuud iyo buuraleydan boorama galabtii ku leersata dhalinyarada joogta gobolkan cagaaran ee Gabiley ee geedaha hoostiisa boogta ku akhrisata dhalinyarada gobolkii Maroodijeex kumka istul fadhiya ee hankoodu yahay in qaranka maamulaan dhalinyarada maskaxda iyo qalbiga iyo caloosha fiican reer Berberaad dhalinyarada rusheega reer Burco inanka ka baalasheeya inanka gabiya inanka kubadda ciyaara runta ku dhintay reer Burco dhalinyarada joogta gobolkii nimcadu dhintaaleey sanaag hoostiisa dhulka hoostiisa macdanta xoolaha ba Ilaahay ku malaystay iyo dhalinyarada joogta labada gobol ee Ilaahay ka indhatiray labada nin ee daranka maamulay Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin ee hawd iyo saraar dhalinyartii joogtay oo dhan markay yaabtay hal su'aal is weydiisay war ma waxay asana soo dagaalantay inaan weligeed dagaalano waxaan dagaal ahaynba maalin Muuse iyo Maxamed Kaahin garaneyn Ilaahay amarkiisa ummadda oo dhan la yaabtay dan rusheega Ilaahay noo soo diray dan rusheego dhaqankii bariga Burco ayaa ummadii dib isku soo yabayay dabeedna waxa dib la isku gartay inaynu doorasho galla 13 November 2024 waxa yaab leh ragii farsamo kale laga filayay waxay la shir yimaadeen 3 qodob aba 4 ilaado oo doonayaan ummadda inay kaga qayb oo barnaamijkooda ay doonayaan dalkan inay dib ugu doorto loogu doorto madaxweynaheenu murashaxa xisbiga kulmiye maanta Muuse Biixi Cabdi wuxuu la hor yimid 2 qodob ummadda wuxuu yiri waa la ay dooranayaa 2 qodob darteed kow waxaan ahay ninkii qaranka difaaco waa la jecel yahay 2 wax rag ay la tartamaya waragii Soomaaliland ka badiyay 2017 oo maanta ka badinaya guri madaxweyne waxa la madaxweyne islaam maaha siday taan sheegayaan laakiin islixdii gobol maqan yahay gobol la adaa bixiyo Itoobiya 20 kilomitir ka baxshay qaranka inta difaacaysa ummadda u taalaynta kale halka waxba ka fogaan maayo laakiin qodobka kale doonaysto taagay isla aad ku dhawaajisay waxa weey 17 baa la ii doortay ragii baan ka badinaya maanta mar labaad madaxweyne islaam maaha shalay markii lagu dooray 2017 horumarkii qarankan ka sameeyay madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo waxbarashada caafimaadka biyaha nabadgelyada iyo quruxdii uu sameeyay ayaa kursi dheer lagu dhaxdhigay dabadeedna xukuumaddiisii oo muddo ka rahay ay ka mid ahay Marwe Samsam Meeday Cabdilaahi Dheere
حقلته سي صاحبكي عبد الله عكسي ما هبل ما تري كلا نبضي أو كمدي هاي محمود حاشي أو كمدي هاي مرودي هراء قرن كامل ورس أو كمدي هاي الهان محمد سامع أو كام دي عثمانك أو يا صاحبك عطاني رجي نوع عاسنة للعيد كسيدين بالغ سيدي مركا اللي سوق يهرب مركي مدحوين السمية هي الدولة دي سي أو كجرب كشيء أيات كصباح هذا مساعد بحماة سبح ما أنت لو واحد كله مدحويني مسوا بحيس صباب يا وأذيك أو أنت صهر مرة ولا جود دبيت لما يبابي وحكوا أكثر على كشة كي رجع وقاعد جوجا ما أنت رجع سشلك وقاعد جوجي ما قعود ده كان كله حشونا شيء لكن هو يهبل سؤال هذا بس ودي له حوي مسوا بحيس لو ما طورنا يمدحوين تدكينه كمان جوجان هرمر كينه واد بابيسي قضب وكاسن قضب كلامات حكومته إن الله هرتم دوني أنا كتشوا حوي أن عيدا ما دي قرنك إنما walaalaheen hay qaranka dawladda dalka loo dhiibay waxay ummadda la hor soo taagan yihiin ciidamadii qaranka hal la weydiiyo wadan xisbiga wadani waxaan qabaa waa jees waa deel loola bareeray qaranka Soomaaliland waa deel iyo jees loola bareeray ciidamada qaranka intoodii dhimataan lagu dul ciyaaraya inta xiran baa lagu jeesaya war xilkii aridii dhibinaba waxa ahayd ciidamada qaranka inaad cashuurta naga qaataan ciidamada qaranka u gudbisaan ciidamada qaranku dalku maamulaan hadaa dafirteen ciidamadii qaranka ku seexanaysaan amarsan hadaa oo walwal geliseen iyo shaki maanta halkay ku dambeeyeen iyo wixii ka mas'uul ahaa oo mas'uuliyadoodiiba dafirteen war waa jees way war saaqi runta sheegmi waa runi mee run isaaqi runta sheegi jiray mee war ciidamada qaranka musabixa la weydiiyo ciidamadii ka dalkii maamulayay hal la weydiiyo yaan deel iyo shaki inta ka badan la galin ciidamada qaranka taana halkaas aan ku laafaya qodobka saddexaad ee walaalahay kaambeeyga ka dhigteen badda keenay wax weey badii awdal oo 20 kiiloomitir badiyo bariba ayaanu Itoobiya sidoo i'tiraafkii baanu ka keenaynaa anoo aan doonin qodobka aylan xilligan aan joogo aad ugu fogaado ama aan aad u baarbaaro waxaan oran lahaa madaxweyne hadday sanaad sool tagtay xoog ku tagto aqal iyo yani garasho iyo waxba la isugu yeero reerkaasi tagay awdal 20 kiiloomitir badiyo bari aad Itoobiya ka siiso inta la i'tiraafiyo soo hadhay waa maxay magaceed sool baatagtay awdal bad 20 kiiloomitir bixisay Itoobiya siisay i'tiraafayna siinayaan dalka la i'tiraafiyo soo hadhay eed hayso waa halkee taariikhdaas ku laafaya qodob kale oo ay isla barnaamij siyaasi ka dhigteen inamadii waxa culays ku noqdeen la xirsi meel hadday soo toosaan xirsi bay ka hadlayaan hadday hurdaan xirsi bay ka hadlayaan ama siyaaya xirsi bay ka hadlayaan dawladnimadii oo xirsi bay ka hadlayaan culays iyo caqdad buu inkaas ku noqday waxa doonaya inaan simbal iraado sita idinka xirsi culays idinku yahay had qarankii dhanaaban dibnee haddii xirsi kala cuslaaday idinka inta la taala intaasaan simbal ku laafaya sidaas islamada wasiir hore Maxamed Jaamac Abgaal ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolka Awdal qodobka ugu dambeeyay doonaya sultaag waxa weey xayga haato waxaan fariin u diray dadka reer Awdal in badan baynu cabanaa oo ka sheekaynaa saami baa maqanayo wasaaradda xun baan joognaa iyo waxaan idin sheegayaa waniyo 180 oo cod baa maanta Awdal yaala dawladnimadii Soomaaliland hadda la qaybsanaya foodkaas lagu qaybsanaya aqalkii Cabdiraxmaan Ciraam maanta dawladnimada loo qaybsanaya ma aha meelaha yar ugu reegsan boon iyo meelaha dawladdu reegsan ma ayo kulmiye xalku soo dhamaaday war dawladnimada oo la qaybsanaya inta barino oo dhan lahaydeen la iima sheegin inta idin sheegaya war dawladnimadii waa la qaybsanaya aqalkii Cabdiraxmaan lagu qaybinaya saacada aan joognaa la qaybsanaya ka soo qayb gala ani hadda horinina waxbaan laga harado loo sheegay salaamu calaykum siyaasi Maxamed Jaamac Abgaal waxaad ka hadashay qodobo kala duwan inta badan waxaad eedaciil soo jeedisay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi muddadii xilku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay waxa lagu arkayay adigoo xisbiga mucaaradka wadani ka tirsan laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay lagu ma arag saxada xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Jaamac Abgaal xisbiga mucaaradka wadani ma dib ugu soo laabtay xilka uu hayay maanta ku hadlayayse waa xilkee aad ma astaadir horta saxaafadu iyo miidiyaha joogitaankeeda maalin walba I think inay macno badan sameeyeen hadalku xilli buu leeyahay mar walba inay soo taagto hadashanadeed macno badan ma sameynayo sidaa darteed waa runta bariyahan leeyma arag معارضة
ها wadani baan ahay wadani xil toosan ka ayo maanta ku sheegaya ma jiro laakiin hadana mas'uuliyiintiisa ayuu ba kamid ahay meel qalin lagu qoray ma jiro laakiin kamid baan ahay adeer hore nooga mid tagin horena waa kamid baan ahaa maantana waa kamid baan ahay doorashadii hore ayaan joogay imikan joogaa waxisbigaas kamid ahay maanta rajadiisu aad iyo aad u fiican tahay in khayrna aanu rajeenayo adeer hadda boormeenu joognaa reer boorama ama reer awdal inta badan iyagu madaxweynayaal ma doortaan laakiin madaxweyne ku-xigeenayaal bay doortaan maanta laba murashax ayaa jira oo isku deegaana maxamed xasan sacid saajin oo ah wasiirka ganacsiga iyo maxamed cali waxaad moodaa in gobolka awdal hadda uu ku faafac badan yahay xisbiga muxaafidka ee kulmiye ilagbaad ka qabtaan gobolka awdalse inaad ku guulaysataan idinkoo wadaniya horta adeer gobolkan maanta ugu horeyso doorasho xilal la qabtana oo loo tartamana maanta ugu horeyso waxayna soo martay laba nin oo isku raasa midna madaxweyne u tartamay midna madaxweyne u tartamay si sharaf iyo qurux lana way noogu dhamaatay maantana runtii ilaahay tiima ka baryaya in kastoo maamulka meesha jooga iyo xisbiga kulmiye dhinaciisa qaabka sidoo tartamayo sidii hore ka duwan oo xarxarig iyo waxaalad kale aan maqlayo runtii rajo fiican ma ka qabnaa in si wanaagsan noogu dhamaato awdal iyo kulmiye haddaan anagu ma gaarsiin weyno wixii ka jira dalka dee annaga khaldan laakiin ummadda reer Soomaaliland reer awdal iyo kulmiye 7 sano la bariyay madaxweyne u noqo Muuse Bixi Cabdiyo ummadda ka mid yihiin madaxweyne u noqo Muuse Bixi taa waa loogu taagway ma filayo halkan inaan ku tartami karno aniga kulmiye maanta imika 3 milyan oo dollar oo golaha baarlamaanka u farsameeyeen horumarka gobolkan iyo wadooyinka waliba aad u xiran Muuse Bixi baa soo celiyo hadda maanta laga doodaya oo cidhiidhi maraya ma arkaya adeer kuma fogaanayo waliba saasee kaambeynku inoo hadhiya inaanu kaambeynka hoos u dhignana waxa noogu wacan hadduu Muuse Bixi arko wadaniyo aad u faafac badan doorashada uu joojin bal inuu oo duruufaha hoos baan u dhignaa adeer waa iga dhab hadduu arko wadani oo dadaalayo oo ummadii dalkii wata wax nooga khayr badan inuu arko xisbigiisa faafac badan si ay doorasho dalka inoo qabsato ma qabanayo barabna kale dhawaato kale dadka inoo gelin inta badan laakiin xisbiga mucaaradka wadani isbedel ayaad ka sheekaysaan laakiin hadana xisbiga mucaaradka wadani waxa ku badan siyaasiyiintii ka soo degrogtay xisbiga kulmiye ku jiray marka maxaa isbedelaya soo uma muuqato kuraas isbedelka aad raadinaysaan xaq u keenaya horta xisbiga kulmiye laba jeer buu dalka xukumay mar wala mahadiyay waxa Axmed Maxamed Siinaay marna waa tan walwalkiina gelisay qaranka dhan walwalka gelisay Muuse Bixi xilkaayo nimanka kulmiye ka soo wareegay laga sheekaynayo waa dadkii dalkan iyo dadka wax ka soo qabtay weeyaan waa dalkii odayga weynay weerarnimo ka soo dhaxlo la shaqeeyay weey waa ha isbedelka aynu doonayna waa isbedel u eg kii Axmed Siinaay iyo madaxweynaha ka shaqeynayeen ma aha mid mucjiso kale oo keenna waa mid ka duwan kan Muuse Bixi waa mid ka duwan qoloqoladan iyo ummadii kala shaqeyn faraabadii la kaliye waa mid ka shaqeeya at least in gobolada la isku xidhay dalka la isku xidhay waa mid dhalinyartu in dalka u sinaataan u doonayno ma aha kulmiyaha ka soo wareegtay kulmiyahan Muuse cid nooga soo wareegtay imika oo ku faanayno ama horumar ka sugayno ma jira adeer waa kulmiyaha Axmed Siinaayna nin weyn oo hadle oo dalka dadka u harsadaan buu ahaa waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka MMTV Boorama